kumanaan dadweyne kala duwan ayaa isugu yimid halkan oo ah garoon kubadda cagta ee Banaadir Stadium. inta badan dadweynaha madaxa waxa ugu xirnaa mara gaduudan taasoo ka dhigan in maanta ay tahay maalin murugo. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa halkan kula hadlay saxaafadda. waxa uu sheegay in maanta ay tahay maalin murugo aadna ugu xun yahay dadkii tirada badnaa ee ku geeriyooday qaraxii dhawaan ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. waxaan codsanayaa inaan kulligeen wada istaagno oo aan u duceyno dadkii naga geeriyooday Allah u naxariista. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay jannada ha ka waraabiyo eheladii ay ka geeriyoodeen iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. sida aan u ducaysanno ayaa waxaa kaloon rabaa inaan u habaarno shabaabka. ilaahay dhulka ha la gooyo, ilaahay dhulka ha la gooyo. waa cadowga ilaahay ummadda ha ka qabto, ilaahay naarta kulligooda ka waraabiyo. ilaahay baan u baryaynaaye ma aflaxaan. waxaan codsanayaa mar walba ood fursad heshaan sidaad waalidkiin ugu ducaysaan inaad shabaabka u habaartaan. waxaa loo mahadceliyey dowlado badan oo ay ku jirto dowladda Turkiga, Kenya, Qatar iyo weliba dowlado kale kuwaas oo muujiyey dareen walaalnimo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale dadweynaha halkan isugu soo baxay la hadlay. madaxweynaha waxa uu sheegay in lacag ka badan 14 milyan lagu qarash gareyn doono in la sameeyo ciidan kuwaas oo loogu magac dari doono ciidamada ilaalinta shacabka. waxa uu sheegay in ciidamadaas ay gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkaba kula dagaalami doonaan xarakada Al-Shabaab. waxaan leenahay oo aan diyaar u nahay oo aan bilaabaynaa inaan abuurno ciidan la yiraahdo ciidanka difaaca dadweynaha. ciidanka difaaca dadweynaha waxaana bilaabaya shaqaalaha dawladda. ciidanka difaaca dadweynaha qof walba oo Soomaaliya waa inuu qori qaato. qof walba waa Soomaaliya waa inuu difaaca ka qayb galo. waxa qayb ka ah oo koow ka shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha rayidka, waxa laba ka ah ciidanka shacabka Soomaaliyeed. dawladdu waxay u qoondaysay maqlaysaan dawladdu waxay u qoondaysay 14 milyan aan ku bilaabayno hawshan hadduu Ilaahay yiraahdo oo koow ka ah la dagaalanka shabaab iyo inaan sameeyno xarumo agoonta lagu xareeyo oo koow aan ka dhigayno dadkii hadda ay ku laayeen shabaab ilmihi agoonta aan ku xareynayno oo aan ku xareynayno qof walba oo shabaab dilaan oo aan siinayno carruurtaas agoonta nolol iyo waxbarasho iyo mustaqbal fiican. Aweys Maxamuud Julcow, Telefishinka RTN, Muqdisho.